taariikhda ciidanka waa taariikh weyn. April 12 oo 1960 la abuuray 12 Abriil 1960 waxaa fikirkaas lahaa Allah u naxariisto Prime Ministerkii dowladdii ku meel gaarkee dowlad ahaan Soomaaliya ugu horeysay Cabdullaahi Ciise Maxamuud ayaa baarlamaanka geeyay in ciidan Soomaali la abuuro oo markaas sovereignty-ga Soomaali ilaaliya. ciidanka taliyihiisii koowaad General Daawud buu ahaa, Daawud Cabdulle Xirsi. labadiisa ku xigeenna waxay ahaayeen Maxamed Siyaad Bare, General Maxamed Siyaad Bare iyo General Caynaash. ku-xigeenka koowaad iyo ku-xigeenka labaad. ku-xigeenka koowaad wuxuu qaabilsanaa xagga operationka, ku-xigeenka labaadna wuxuu qaabilsanaa xagga taakuleenta. wasiirkii gaashaandhigga oo markaas Professor Gandhi ahaa ayaa General Maxamed Cali Samatar u yimi, Virginia ugu yimi. markaasuu weydiistay, wuxuu ku yiri war aniga wasiir gaashaandhigga laga dhigay, ABCdii gaashaandhigga iyo difaaca security-gana ma garanayo, gacanan kaaga baahana. hadda Samatar wuxuu ku yiri waayahay dalkaas waa dalkeeni, dhibteedana waa la dhibaysaa. marka waxaan kaa codsanayaa keliya in adiga iyo madaxweynahada iyo Prime Ministerka hadda jira aad isku aragti ka tihiin. haddaad isku aragti ka tihiin waa gacan weyn aad siin karnaa. kaamba maxaaro waxaa loogu bixiyey waxay ahayd Dr. Cabdilcasiis, waxay ahayd extension meel ka mid ah xaafadda Shingaani. marka kacaanka uu bedelayay magacyo badan ayaa lala soo xiriiray. wuxuu yiri oo ku tala ku bixiyey xaafadatan Shingaani ayay ahaan jirtay. kaamba maxaa loo bixiyey maadaama hadda identity gooni ah ay yeelatay. masjidkan Cabdilcasiis ee gurigeygaba ka soo horjeeda furdadana dhinaciisii ah ha loo bixiyo. maxaa jira sheekh weyna halkaa ku aasan, Sheekh Cabdilcasiis. marka ha lagu honoraareeyo, halkaas loo bixiyo. saasay ku baxday. qabiilka kan isu haysta bahweynaan ahay, haddii looga aqoon badan yahay farsamadii iyo hogaamintii, waa kan aan ku xusnay ciidanka be no do-dii haddii looga fiican yahay, ninka ka fiicana ayaa keenaya ciidan guulaysan kara. maanta janano in la siiyo, sareeyo gaas laga dhigo asoon xidig la soo marin, haddee ma keenayso ciidan farsamo u baahan oo tiro iyo tayo la rabo inuu hogaamiyo. karti iyo hufnaan dadka inay wax ku qaataane qabiil inay wax ku qaadan. qabiil wax kuma xukumi karto. adaa malaysay laandheere inaad tahay, laandheere, laandhexe, laan hoose. ninka reer banaadirka ahaa gabadhii waxay tiri ninkaadaa ku dhib qaba. bismillaahi raxmaani raxiim. kulanti wanaagsan akhyaari dhammaantiinba meel walba joogtaan. kusoo dhawaada barnaamij ka mid a barnaamijyada soomkan aad uga barateen. toddobaadkan barnaamijka waxaa marti noogu ah Cabdiraxmaan Sheekh Ciise oo ka mid ahaa saraakiishii militariga Soomaaliya ee dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Cabdiraxmaan waxa uu muddo dheer hogaaminayay hoggaanka xiriirka arrimaha dibadda ee wasaaradda gaashaandhigga. Cabdiraxmaan waxaa kale oo uu soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud muddo xileedkiisii hore. sidoo kale Cabdiraxmaan waxa uu danjire ka soo noqday dalka Talyaaniga oo uu muddo dheer halkaasi joogay. sidoo kale Cabdiraxmaan waxa uu degan yahay magaalada Toronto, waxa uuna ka mid yahay macallimiinta ka diiwaan gashan guddoonka waxbarashada ee gobolka Ontario. waxa uuna ka mid ahaa macallimiinta dugsiga sare, markii dambena waxa uu macallin ka noqday jaamacadda magaalada Toronto. aad baan ugu faraxsanahay Cabdiraxmaan Sheekh Ciise inuu barnaamijkeena marti noogu noqdo. Cabdiraxmaan, marka ugu horeysa soo dhawow. waa dhowhay Muxudiin.
cabdiraxmaan runtii nin taariikh weyn ku leh militariga Soomaaliya iyo taariikhda Soomaaliya iyo hadday noqotaba adigu qoys ahaan waxaad ka soo jeedaa qoys runtii ku abtirsada halgankii gobonimo doonka Soomaaliya gaar ahaan Allah u naxariistay aabaha Sheekh Ciise bal aniga iyo dadkana daawanayaba waxaan jeclaan lahaa cabdiraxmaan marka ugu horeysa intaan wareysigeena gelin taariikh ahaan cabdiraxmaan Sheekh Ciise waa qof sidaya horta waa muwaadin Soomaaliya kontomeeyadii ka hor dhashay actually 45 aan dhashay iskuulaadka oo dhanna waxaan ku soo sameeyey Muqdisho marka hore intaan weli jaamacada laga abuurin marka ciidamada qalabka sida waxaan ku biiray 60meeyadii dhexe maadaama baahida dalka ay aad u jirtay dalkuna halis ku jiray oo maxaa dhacay dalkoo 4 jir ah waa ogtihiin 64 dagaal ayaa lagu soo qaaday marka annagoo markaas secondary school dhammaynay ayaa waxaa markasta inoo imaanayeen saraakiishii markaas jireen ciidamada hogaaminaya oo nagu baraarujinaya inaan ka soo qayb galno ciidanka hogaaminta ciidankana aan ka mid noqono marka waxaan xasuustaa oo ka mid ahaa General Salaad Gabeere Kadiye maxaa cali Samatar iyo grubyo badan oo hogaamada kala duwan joogeen Cabdullaahi Yuusuf waa ka mid ahaa Aidiid oo isagana abaabulka joogi jiray marka sidaasaan ciidanka ugu beernay iyadoo qiiro wadaniyad aan cuskanayno marka kuliyadaha dibaddana loo soo diray aniga dadkii Talyaaniga wax ku soo bartaan ahaa kuliyadda Academia Modern la yiraahdo 4 sano ka baranayay 2 sano oo ah wixii basic ahaa iyo 2 sano oo kale ah oo xagga farsamada markaas aan ka qaadanay marka xagga madaafiicda goobta ayaan farsamadeeda ahayd marka kadibna waxaan nimid Soomaaliya waa ka soo shaqeeyay wasaaradda gaashaandhigga iyo culweyna intaasba waa ka soo shaqeeyay hadday noqon lahayd urur hadday noqon lahayd guuto hadday noqon lahayd gaasaska waqti dambaa la abuuray dagaalada kadib iyo qaybtaba labada qayb ee aad uga soo shaqeeyay waxaa ka mid ahayd midda Baydhabo oo baanduula ka ahaa iyo tan kale ee maxaa waqooyi galbeed marka kariyereyga halkaas oo ahaa hadda nasiib daro dalka markuu galay xaaladda qaarkood waxaan ka soo tagay in the 80s isagoo weli dowladdii ay jirto aan ka soo tagay marka kadibna hadda ilaa waqtigaas dhulkaan aan ku noolahay waa gartay cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay runtii taariikhdaas kooban oo aan filayo inay intaa ka ballaaran tahay dad badan baa waxay isweydiin karaan cabdiraxmaan Sheekh Ciise maanta hadduu warbaahinta hor yimid waxaa qasaba in halkan laga xuso taariikhdiisii oo kooban Allah u naxariistay aabaha halgankii gobonimo doonka Soomaaliya SYL dadkii hogaaminayay ka mid ahaa taariikhdiisu siyaabo kala duwan baa loo sheegaa laakiin maanta marqaatiga nool adiga ah bal haddaad noo sheegto Allah u naxariistay Sheekh Ciise aabaha Sheekh Ciise wuxuu ka mid ahaa SYL markii la abuuray xubin ka mid uu ahaa 1947 ayaa SYL la abuuray kadibna wuxuu noqday xubin ka mid ah Central Committee oo ka mid ahaa in muddo ah from 1958 to 1960 wuxuu ahaa gudoomiyaha Somali Youth League ama SYL loo yaqaan ayuu ahaa intaan xorriyadda la qaadan marka isku soo jiidkii waqooyi iyo koonfur ee wada tashigoodii ninka hogaaminayo ahaa waan ka dhagaysanteen Maxamed Ibraahim Cigaal oo ka hadlaya marka gudiyadii markaas axsaabta masilayeen kulankoodii
afgaradkoodii ninka hogaaminayo ahaa markaa kadibna xorriyadda markii la qaatay retire buu ka noqday maadaama ujeeddaduu lahaa ama uu halgamaya la gaaray xorriyaddii marka aabe intaas waa allah u naxariisto wuxuu dhintay 1964 waxaana lagu aasay meel Lafoola agteeda ah muxuu u doortay halkaas 48 wuxuu u doortay waxay ahayd halkaas waxaa ku aasan nin la yiraahdo Sheekh Xaaji Axmed Mahdi taariikhdiisa aad looma xuso laakiin wuxuu ahaa halgamayaashii ugu sareeyay oo taariikhda Soomaaliyeed ku yeeshay isaga wuxuu ahaa nin Muqdisho ku dhashay marka 1859 talyaaniga soo galayay talyaanigu la halgamay wuxuu mobilize gareeyay wuxuu yiri xamar islama joogayno aniga iyo ninkaasi yani rabo inuu adoonsado marka wuxuu degay jasiira agteedii wuxuu mobilize gareeyay afgooye inta degan wacdaanka iyo galadiga marka uu meesha marayay Lafoola agteeda marka Lafoola waxay uga baxdayba waa subaxnimo la soo weeraray oo lagu soo jibiyay ninka hogaaminaya 14 talyaani aan meesha looga dilay marka Lafoola waxaa looga bixiyay meeshaba magaca waa halkaas ayuu iska yahay Soomaali inta badan ma yaqaanaan marka duqaas Sheekh Xaaji Axmed Mahdi marka gudaha la galo Lafoola ayaa qabrigiisa ku yaal qubi weyn meesha ku yaal aabba marka uu geeriyooday wuxuu ka dardaarmay in meesha lagu aaso marka halkaasaan ku aasnay marka allah u naxariisto isagay inta u soo halgameen xorriyadda Soomaaliyeed waajibkooda ka soo baxeen waata Cabdiraxmaan allah u naxariistay aabe Sheekh Ciise runtii taariikh weyn buu ku leeyahay waxaan filayaa adigu laftigaagaba inaad soo wado inaad taariikhdiisa si gaar u soo bandhigi doonto haday bug noqoto iyo hadii si kalaba noqoto waxaan kale oo maadaama hadda aad ka dhawaajisay magac bixinta Lafoola sidee ku baxday taariikh weyn ayaa waxa uu ku leeyahay Sheekh Ciise allah u naxariistay aniga adigu waxaan ka nimid xaafad la yiraahdo Kaamba Amxaaro oo Cabdicasiis la yiraahdo waxa igu maqaala in xaafadaasi magac bixinteedii uu aabe Sheekh Ciise iska lahaa say ku timid waa run Kaamba Amxaaro waxa loogu bixiyay waxay ahayd Dr. Cabdilcasiis waxay ahayd extension meel ka mid ah xaafadda Shingaane kadib dagaalkii 1936 ee talyaaniga ku qaaday maxaa la yiraahdaa Ethiopia isagoo argoosi arintii ku jabay marka hore sameynaya waqti xilligii Mussolini ayaa maxaa la yiraahdaa dagaalkii dadkii la soo xirxiray la soo qabtay ayaa eredaas hadda Kaamba Amxaaro la magac bixi doonta oo dadka ayaa u bixiyeen laakiin extension waxay ahayd Shingaane ka mid ahayd ayaa lagu soo xireeyay camp meesha ahayd Amxaarana waa lagu soo xiray Kaamba Amxaaro saasa loogu bixiyay micnahaasa halkaas uu ka yimid laakiin Shingaane ahayd marka dowladdii dambe Soomaaliya abuuratay magacyadii xaafadaha ama degmooyinka la bedelayay ayaa aabbe markay u yimaadeen yiri war xaafadatan Kaamba Amxaaro saasaa loogu bixiyey Amxaaro presence of war ahaa oo la keenay meesha ayaa dadka yaa degan meesha Amxaaraa ku xiran Kaamba waxa waaye Kaamba ereyga Kaamba waa xero oo Amxaaro ku xiran xero Amxaaro saasay uga baxday oo magacaasa xoog yeeshay laakiin kadib marka kacaanka uu bedelayay magacyo badan ayaa lala soo xiriiray wuxuu yiri oo ku tala ku bixiyay xaafadatan Shingaane ay ahaan jirtay
kaama maxaa loo bixiyay maadaama hadda identity gooni ah yeelatay masjidkan cabdilcasiis ee gurigeygaba kasoo horjeeda furdadana dhinaciisii ah ha loo bixiyo maxaa jira sheekh weynaa halkaa ku aasan sheekh cabdilcasiis marka ha lagu onoraareeyo halkaas ha loo bixiyo saasay ku baxday maasha allah danjire cabdiraxmaan sheekh ciise aad aad u mahadsan tahay hadda haddii waraysigeenna ujeedadiisa aan u nimid halkan dhismaha ciidanka soomaaliya iyo siyaabihii adiga aad uga qayb qaadatay iyo waxyaabaha is leedahay runtii kaalin waa ka geysateen iyo waxaa hadda dhimanba bal waxaad iga warantaa maadaama adigu backgroundigaaga amaba runtii shaqadaada inta badan ay ahaan jirtay ciidamada oo runtii muddo dheerna aad ka soo shaqaynaysay weliba mar sida aan hordhaca ku sheegaba aad noqotay la taliyaha gaarka ah ee amniga qaranka madaxweynaha soomaaliya marka bal waxaad iga warantaa dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya qaaradda afrika magac weyn bay ku lahaayeen dhismaha intaas la eg siday ku soo gaareen taariikh ahaan dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inaad ii sheegto kadibna aan u guda galno wixii hadda wax laga qaban karo iyo waxa qaldanba horta taariikhda ciidanka waa taariikh weyn April 12 oo 1960 la abuuray 12 Abriil 1960 waxaa fikirkaas lahaa allah u naxariisto prime ministerkii dowladdii ku-meel gaarka ee dowlad ahaan soomaaliya ugu horeysay cabdulaahi ciise maxamuud ayaa baarlamaanka geeyey in ciidan soomaali la abuuro oo markaas sovereigntyga soomaali ilaaliya mar haddaan xorriyad goordhow qaadan doono ee laga maarmaana booliiska maadaama amniga gudaha qaabilsan yahay amniga qaranka oo dhan soodintiisana ciidan looga maarmo in la abuuro baarlamaankii ayaa la geeyey si solemna ah oo wada jira ayaa loo ogolaaday marka ciidanka halkaasuu ka bilowday horta hore dhismihiisii marka saraakiishii loo soo diyaariyey xagga amniga markaas oo talyaaniga u soo tababaray oo maxaa layihahdaa markaas jireen jenaraal maxamed abshir muuse oo booliiska hayay ayaa iyo jenaraal daa'uud oo markaas weli iyaga korneel ah xilkii loo dhiibay ayaa jenaraal hadda lagu magacaabay la siiyey waana mudnaayeen maxaa dhacay dad soo halgamayoo aada wax u soo bartay ahaayeenoo kuliyado loo diray talyaaniga ka yimi kontumeeyadii marka sidaasaa labadii ciidan markaas midna xagga amniga gudaha u noqday midna sugista amniga qaranka difaaca waddanka looga dhigay 1960 ayay abuurantay 6 April maxaa layihahdaa cabdulaahi ciise baarlamaanka geeyey intaan weli xorriyadda la qaadan ayaa markaas maxaa layihahdaa la abuuray marka marxalooyin badan buu soo maray ciidanka iyo dib u dhis runta waa aadaa loogu dadaalay marka ciidankii xoogga dalka markaa la abuuray iyo midnimada soomaaliyeed markaa abuurantay iyo kii waqooyi ayaa la ysku daray marka hal ciidanaa laga dhigay kooxdii ugu horeysay 2000 bay ahayd oo lagu tababaray maxaa layihahdaa bootego oo magaca talyaani lah ahaa oo lagu bedelay xalane xerada xalane wuxuu ahaa nin bilod daahaba ku mutaystay dagaalkii 64 oo wajaale markay xabashida ay soo galeen ee calanka soomaaliyeed rabaa inay qaataan la dagaalamay calankii soo dejiyey shafkiisii ku soo qaatay saan calanka loo qaban maxaa jira calanka wuxuu ahaa astaan qaran oo soomaali leedahay marka haddii ay maxaa layihahdaa la qabsado waxay u dhigantahay iyadoo dalka la qabtay marka maxamed cabdulle xalaane halkaas ayaa magacii hore ee talyaaniga isticmaariga ahaa ee bootega la dhihi jiray
oo ahaa nin magaratay xukumi jiray dalkaas intaan weli xorriyadda la qaadan loo siiyey oo lagu sharfay ilaa haddana loo yaqaan marka arrin runta mutaysi ah oo aad u wanaagsan bay ahayd magacaasa saasuu ku baxay runtii dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sidaa sheegtay Allah u naxariiste Cabdullaahi Ciise oo fikirkiisa iska lahaa kadibna halkaas waxaa ka hana qaaday dhismihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya haddii aan usoo gudubno waqtigii dambe dowladdii militariga runtii ciidanka aad buu u dhismay hogaanadiisa kala duwan bal markaasi qaab dhismeedka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dowladdii kacaanka sidee buu ahaa anoo tahay wax ka sheegi doona waxaan ku darayaa ka hormarinayaa ciidanka taliyihiisii koowaad jenaraal daa'uud buu ahaa daa'uud cabdulle xirsi labadiisa ku-xigeenna waxay ahaayeen maxamed siyaad bare jenaraal maxamed siyaad bare iyo jenaraal caynaash ku-xigeenka koowaad iyo ku-xigeenka labaad ku-xigeenka koowaad wuxuu qaabilsanaa xagga operationka ku-xigeenka labaadna wuxuu qaabilsanaa xagga taakuleenta waa laba aan kala harin haddii la rabo ciidan inuu shaqeeyo ciidan aan taakuleyn lahayn dadka bini aadamka ee ka shaqeeya askarta in calooshooda ay buuxdo ayaa laga maarmaana technologiga ama hubka ay ku shaqeynayaan oo ku halgamayaanna yani wuxuu ka imaanayaa dhinaca logistikada marka logistikada waa muhiim logistika la-aan ciidan ma socon karto marka sidaasaa labada operation iyo logistica labadii taliya xigeenka ahaa loo dhisay oo ay kala lahaayeen maxaa la yihahdaa howl ahaan kala lahaayeen markaas halkaasay ka bilaabatay kadib ciidankii labadii kun lagu bilaabay uu sii fiday farsamooyinka uu sii fiday ururo badan uu yeeshay marka runta xoogga dalka Soomaaliyeed saldhigiisii oo yani waxay ahaayeen dad modest oo askarta aan iskuulaad badan soo gelin marka haddana waxay kafaala qaadeen askartii markaas meesha ku jirtay inay u bilaabaan alfabetizazione inay wax baraan qoraalka ay baraan farsamada ciidanka inay baraan soo ma garan marka inta badan dadka civilka waxaan ku xamalnaa waxay askartoo dhan u arkaan bunduq iyo belo maya askar la-aanteeda dal ma jiri karo dalka qaranka wuxuu u baahan yahay amnigiisa in la badbaadiyo hadday noqon lahayd mid gudaha ah iyo mid dibadda tan gudaha waxaa qaabilsan booliiska iyo hay-ada kaloo hadda abuurmeen sida niis oo kale nabad sugidda maxaa jira haddaan xog la haysan talo lama haysto soo ma garan marka hadda wuxuu marayaa meel nasiib darro markii dowladdii duntay haddee ciidankana halkaasuu ku dumay laakiin dib u abuurkiisii ayaa lagu jiraa weli waa fragile meeshii laga rabay ma joogo marka maxaa jira waagii aan anaga xukumaynay wuxuu ahaa ciidan africa runta yani hormuud u ah markii shirkii lagu qabtay African Union lagu qabtay Soomaaliya 1974 markaas waxaa ka mid ahaa madaxweyne waxaa ka ahaa maxamed siyaad barre leaderskii oo dhan waa isku yimaadeen dhibaa jiray markaas oo ah waxaa is haysteen Uganda iyo Tanzania dowladda Uganda iyo Tanzania marka Nyerere oo markaas shirka ka qayb galay ayaa dacwadii soo hordhigay African Union markuu soo hordhigay waxay noqotay in arrintaasi wax laga qabto hadda waagaas ma jirin ciidan u gaara oo maxaa la yihahdaa dowladda African Union ay iska leedahay sida hadda AMISOM oo kale wax noocaas baahida dambe abuuri doonta marka waxay qasab ku noqotay Soomaaliya arrintaasi gasho
marka wafdiyaa loo diray hogaaminaya Ismaaciil Ala Abuukar wasiirka arrimaha dibadda Cumar Artaqaale abaanduulaha labaad ee xoogga Nuur Cadow Cali iyo laba sarkaal oo kabtana ah marka midna anigu ahaa midna nin saaxiibka oo Ciise Curaate hadda meel ku sugan yahay aan ogeyn ayaa ahaa markaan meesha tagnay waxay noqotay labada ciidan dhexdooda inaan galno marka waxaan ku dhihi karaa African ciidamadii ugu horeysay ee dhaxgal iyo nabadda sugta ciidanka Soomaaliya ahaa soodintii waxaan ka shaqaynaynay dhinaca aniga Embraer dhinaciisaan joogay ciisana wuxuu joogay dhinaca kale soo ma garan inaan kala fogeyno labada ciidan markaasna dagaalka meesha aan ku baajino runtii waa lagu guuleystay aad loogu guuleystay Soomaaliya sharaf bay ku yeelatay cabdiraxmaan waagaasi runtii midnimada iyo dishibliinka iyo kala dambeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya maxaa gundhig u ahaa asal maxaa u ahaa horta ciidan dhowr qodob ayuu leeyahay oo annaga ku tilmaano diyaar garowga dagaalka marka koow waxaa ka ah leadershipkana waa muhiim wuxuu muhiim ugu yahay waa hogaaminta ciidanka hadday noqon lahayd xag tababar xag operation soo ma garan iyo xag maxaa lahdaa hubeyntiisa iyo saanadiisa intaba soo ma garan marka runta meesha hadday gabaabsi ka dhacdo ciidankii meeshii laga rabo ma imaanayo that's the reason loo yiraahdo leadership kaliya ma aha leadershipka waxaa la yiraahdaa sidiisaba dhowr qodob oo ka abuurmaa waxaan ku soo koobnaa be no do bida waa ahaansho nowna waa aqoon duna waxa waaye hirgelinteedii soo ma garan markaan barayna askarta ilaan acronyms wax la yiraahdo ama waa u fududayn jirnay tababarkooda si ay u fahmaan concept aad iyo aad complex u ah marka arrintan bida la leeyahay oo yani laga sugayo ninka hogaamiyaha ah waxaa ka mid ah nin caadila inuu yahay nin codkar yahay oo masajka gudbin kara waa bidi haddii uga ahaasho bida waa ahaasho soo ma garan nin caadila nin codkara codkar hadduusan ahayn hataa qasab ma aha inuu gabyi karo ama waxyaaba qaarkood sheegi kare waxaa la rabaa inuu qancin karo loo taliyayaashiisa inuu qancin karo kuna jihayn karo waajibka ay leeyihiin marka aqoonta waa waa aqoon farsamo oo la rabo ciidamada in loo diyaariyo la tababaro Soomaalida xataa hadduusan wax baran way fahmi badan yihiin concept aad complex u ah oo aad u sareysa ayaa si sahla yani loogu micnaan karaa waa haddii leadershipka ama taliyihii ama commanderka waa leader maxaa la yihahdaa qaabkii wax loo baraaye yani u sahliyo fahamkiisii way milkin karaan kadibna way hirgelinayaan duudi waa hirgelin goobta dagaalka ama howlaha kale loo dirtay ayay ku fulinayaan marka saddexaas eray ayaa muhiim u ah xagga leadershipka marka ninka leaderka ahee taliyaha ah waa inuu horta leeyahay dulqaadkii farsamo yaqaankii iyo hirgelintii waajibka laga sugayay marka taa waa qodob oo ka mid ah wadar ahaan marka la isku daro hogaaminta la yiraahdo ama leadership waxayna ka mid tahay diyaar garowga dagaalka ciidanka wuxuu diyaar u noqonayaa marka waxaa la yidhahaa mas wuxuu ka dhintaa madaxa haddii madaxa ama ninka liidarka ah uu yahay nin culus aqoontii farsamo yaqaan hogaamintii
dadka u yaqaan waxay gocanayaan loo siiyo xagga logisticada la saaliyo sooma garan maxaa jire hubka ay isticmaalayaan ay haystaan ciidan fiicana ka soo baxaya waana ka soo baxay Soomaaliya ciidankaasi. cabdiraxmaan runtii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya awoodda weyn oo ay qaaradda Afrika ku lahaayeen iyo guud ahaan dalka Soomaaliyaba markii ugu horeysay oo dhib soo gaaray ciidanka waxaa la sheegaa inay tahay dagaalkii 77 intii ka horeysay ciidanka inuu is haystay markaas ma tahay markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu aad u wiiqmay. horta dagaal sidiisaba wuxuu la yimaadaa shido waa guulaysan kartaa guuldarana waa kugu dhici kartaa laakiin guuldaro looma dhinto. dagaalkii 77 runta ciidanka sharaf buu ka soo qaaday kartidiisii waa lagu arkay kadibna haddee waxay noqotay in loo bira tunto ciidamo shisheeye ah marka guulayse ma dhihi karee yani iskaashi ka yimid ruushka oo marka hore sida taariikhduba sheegayso rabay inuu maxaa la yihahdaa isku keeno Mengistu iyo Maxamed Siyaad xagga cadan inuu isugu keeno isku keenay markay dhaqdhaqaaqa socday oo jabhadaha bilaabeen howlihii marka dowladda Soomaaliyeed waxaa ku adkaysatay Maxamed Siyaad ku adkaystay hadda shirkan dadkii kolonialismo waa dhamaatay dadkii Soomaaliya meesha lagu hayay inay ka soo qayb galaan Soomaali galbeed ayuu ku adkaystay marka taas ayaa meel la saara la waayay kadib waatuu Fidel Castro Soomaaliya yimid haddana kuma guulaysan dagaalkii markuu bilowdayna kadib qayb ka mid ah ciidamada waa ka qayb galeen markay ka qayb galeen oo meel fiican oo halisa gaarsiinay ayaa ciidamadii joogay Angola ahaayeen maxaa la yihahdaa dalkan Cuba oo ilaa 3,000 ayaa la soo raray la keenay goobta dagaalka aad u hubaysan xagga cirar iyo xagga dhulka ruushkana taakulanteeda bixinaysa marka taas ayaa annaga marka Soomaaliya withdrawal soo samaysay withdrawalka baqdin maaha guul darana maaha waa dib u gurasho maxaa jira halista kaaga imaan karto hadday ka badan tahay guusha aad gaari karto hadda waa farsamahaas waa la isticmaalaa ritiraatada waxa af Talyaaniga lagu yiraahdo ama withdrawal Ingiriiska lagu yiraahdo ama dib u gurasho Soomaali lagu yiraahdo waa xeesha dagaalkay ka mid tahay sidaas ayaa dibka loo soo gurtay guul daro u naqaan annaga. cabdiraxmaan waxaan kaloo ku weydiin lahaa midowga Sofiyeeti Soomaaliya waagaas saaxiib bay ahaayeen waa tii wadanka uu hanti wadaag ahaa waxyaabaha ugu waaweyn oo lagu kala booday dowladdii kacaanka ee markaa jirtay iyo midowga Sofiyeeti oo keentay inay dhinaca kale ka soo jeestaan markay Soomaaliya Itoobiya dagaal la gashay maxay ahayd? wal garasho la'aanta maxaa la yihahdaa Soviet Union ka ahayd waxayna ku timid Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Afrika way soo adoonsadeen oo way soo xukumeen iyo Talyaaniga marka shidadii ay abuureen ayaa meesha tiilay dadkaana way garan waayeen war socialistaatiina garabka isqabsada kaliya ayay ku doodayeen laakiin dad meesha jooga masiirkoodii la meelmariyey muwaadin xuquuqdooda aan lahayn ay Soomaali galbeed deganayeen ayaa jireen tii bay fahmi laayihiin Soviet Union fahmi weyse marka halkaasaa isgarasho la'aanta ka timid ka bilaabatay.
cabdiraxmaan runtii waxaan usoo gelaynaa dhismaha ciidanka xoogga dalka sidii runtii adigu waxyaabihii aad ka soo qabatay saraakiishii sare ee wakhtigaagii joogay waxyaabihii aad ka qabateen sidaad og tahay runtii dagaalo sokeeye meel walbay ka dhacaan isbedel siyaasadeed meel kastuu ka dhacaa basar waad ogeyd meelo aad u fara badan oo afrika iyo carabta ka mid a adduunyada dowladdu markii ay dhacdo militariga ayaa wadanka si kumeel gaara u maamuli jiray marka dowladdii maxamed siyaad barre meesha markay ka baxday ciidanka weli awood buu lahaa waxyaabaha ciidanka markaas ay ku kala tageen maxay ahayd maaragtay waxay ahayd meesha keliya Soomaaliya laga badbaadin karay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay wadanka si ku meel gaar u qabtaan kadibna doorashooyin dadka rayidka ah markaasi ayaguna loo qabto horta howl u taala ciidanka maaha ciidanka difaaca qaranku leeyahay waa looga fiican yahay mana aha inay maamulka iyaga qabtaan waa jirtaa meelo badan kuudataa ka dhacay Soomaalina waa ka dhacday hadda kuudataadana haddii in wax saxayso kadibna wareejinayso waa faa'iido laakiin waan haynaynaa adigana aad noqoto yani kaligii taliyihii meesha joogay guul ma keenayso marka arrintaas iyada ah waa arrin xasaasi ah oo loo baahan yahay dadka militarigana inay gartaan maxaa la yidhaahdaa kadibna xukunkii wareejiyaan markay wixii qalad ahaa ay saxeen tii markay imaanaysay madaxweynea la dilay allahu naxariista cabdirashiid cali sharmaarke dalkii instability weyn uu ku sugnaa soo ma garan maxaa la yidhaahdaa dadkii markaa xukumayeen dalka iyo dabutaatayaasha ahaayeen waxaan war ku hayaa nin wiilkiisii lagu dilay tartankii dabutaatanimada uu yiri markii warka sugaya loo shaawar wartaa iga daayo war ma raaye dabutaatanimada ma helay uu yiri war wiilkaada la dilay soo ma garan dabutaatanimada ma helay marka runta waxa waaye militariga aniga ma qabo in xukun ay gacanta ku hayso militariga xubin ka mid ah xukunka jira ayay tahay amnigay sugaysaa civiliankana iyagana inay noqdaan maaha kaligii taliyo anaa meesha joogaa yidhaahdo may adiga waxaad ku joogaysaa dastuurka uu kuu ogolaadaad ku joogaysaa dastuurkana hadduu yidhi 6 sano kadib ama 5 sano kadib waad xukunka waa ka degaysaa waa inaad ka degtaa soo ma garan yani haddii kale waxaad gelaysaa dhinacii kale dictatornimadana waxay keenaysaa shido iyo dagaal ahliya iyo waxaan maanta dowladnimada aan ku weynin failed state waxaan ku noqonay taasay ahayd failed state waxaan ku noqonay waxay ahayd dadkii oo isfahmi waaye qabiilkii oo diin laga dhigtay maxaa leedahay xataa haddii la yidhaahdo qabiilka wax lagu qaybsado soo ma garan si loogu qaybsado maba aqaanba aniga soo ma garan maxaa dhacay qabiilka kan isu haysta bahweynaan ahay haddii looga aqoon badan yahay farsamadii iyo hogaamintii waa kan aan ku xusnay ciidanka be no dodii haddii looga fiican yahay ninka ka fiicana yani ayaa keenaya ciidan guulaysan kara soo ma garan laakiin qabiilaa lagu dhisaa haddii la yidhaahdo ma soconayso maanta janano in la siiyo sareeyo gaas laga dhigo asoon xidig la soo marin haddee ma keenayso ciidan farsamo u baahan oo tiro iyo tayo yani la rabo inuu hogaamiyo ku dhiso ciidankii ma dhacayso marka runta waa inaan ka baxnaa midnimada Soomaaliya hadda halis ku jirta runtii maxaa dhacay goboladii dowladda dhexe isma haystaan nin walba gooni iska tagay yani wixii waaga hore ciidanka lagu tilmaami jiray oon sii ahaanaya gobolkaas anaa haysta
maya 5 sano waa gudubtay tii labaada haddana galay ma soconayso waxay keenaysaa dagaal ehliga keenaysa marka waxaan rajaynayaa in tacliin laga bartay lagama baran fari kama qodna marka waa u duceynaynaa in ilaahay ku soo qalbigooda tuso waxa suuragalka ee waxaan suuragal ahayn dalna waxaa lagu xukumaa constitution oo ah sharciga ugu sareeya dalka lahaa nin walbana rabo inuu ka dambeeyo gobol iska samaysan kara constitution u gaara ma jiro qaran wuxuu leeyahay hal constitution uu leeyahay oo lagu maamulo duruufo gaara wuu lahaan karaa gobolka marka sidaasaa mas-uul gobol loo sameeyey oo duruufihii markaas meesha jiray ugu adeego ummaddii markaa meesha deganayd laakiin ma noqon karo mid aan ku tixneen dastuurkii aasaasiga ahaa ee sharcigii ugu weynaa dalka ah ma noqon karo marka mudnimada soomaaliyeed waa muhiim soomaali jiritaankeeda ayay ku jirtaa soomaali jiritaankeedana waxay ku jirtaa mar haddii tii jabuuti oo hadda shir dambe la galay haddana la isugu yeeri la leeyahay in laga baxo karti iyo hufnaan dadka inay wax ku qaataane qabiil inay wax ku qaadan qabiil wax kuma xukumi kartid qabiil wax kuma xukumi kartid maxaa jira imse qabiil ay ka kooban tahay soomaaliya fowdo waaye cidna laguma tali karo waxaa la rabaa dadkii farsamada yaqiinay inclusivenesska micnaheeda ma aha qabiilo iyo huuhaa in meesha laga keeno dadka aan farsamadii aqoon war nin farsamada yaqaan waa laga helayaa reer waliba yacni meesha uu ku fiican yahay ninkaas ha la geeyo hadduu waxbarashada ku fiican yahay ha la geeyo hadduu hogaaminta ciidama ku fiican yahay ha la geeyo soo ma gara iyo inta farsamo ciidanka ka mid ah laakiin wasiiradii in lagu dhiso ilaa heer hoose lagu dhiso macquul ma oo la siiyo milkiyad ahaan wasaaradda hebel reer hebelaa iskale oo maanta duruufta taagan ay tahay soo ma gara kuwii gobolladana sii dheer marka arrintaasi waxaan jecelahay aan ugu ducaynaynaa inta maanta maamulka haysta inay isbeddel weyn ay gartaan qaldaadkaas ay ku jiraan inaan socohayn dastuurkii 1960 maadaama kacaan yimid asana wax kale la yidhi dalkii u dumay heekalkiisii ilaa hadda ayuu yahay mid ku meel gaara war ku meel gaar macquul ma aha 30 sano inay gaarto macquul ma aha haddii dalkaas constitution lagu qanacsan yahay soomaalida oo dhan muwaadiniinta afti ka bixiyeen nin diidi kara ma jiraan kii diida sharcigaa qabsanaya laakiin hadda la isma qaban karo maxaa jira ninka gobol haysto dictator yaroo meesha jooga waa isagaa rabaa in meesha haysto war ma haysan kartid maxaa jira waxaa dhici doonta berito inay ku afgabayaan kuwa hoostaada joogeen marka dalkan instability inuu ku jiro 30 sano nagu filan waxbarasho hadday noqoto maxaa la yidhahdaa egonimadaada iyo waxaas ina meel ku gaari weysa hadday noqoto marka waxaa laga maarmaana yani inta kartidaas leh 4.5 in laga baxo 4.5 yaa istiriya hortooda sideedaba tira koob ma lahayaa yaa istiriya waa fiction waa malo soo maha adaa malaysay laandheere inaad tahay laandheere laandhexe laan hoose ninka reer banaadirka ahaa gabadhii waxay tiri ninkaadaa ku dhib qaba laandheere maa tahay ninkaadaa ku dhib qaba marka waxaan is leeyahay arrintaasi ha laga baxo waan ugu duceynaynaa in qalbigoodii ilaahay qaboojiyo dadka ay gartaan in maxaa la yidhaahdaa dalkaas la wada leeyahay soomaalidana waa dad fiican soomaalida waxaan ogahay inta aan soo bartay dad fiican
laba quality way leeyihiin horta shakhsiga Soomaali waa fuli laakiin waxaan fidinaa geesi inaan nahay waa fuliyo marka sharciga hogaamintiisii la galo nin walba wuu ku tixmayaa hadduu dhinac uga baxo in dhinac lagu dhufanayo ogyahay horena waa soo aragnay soo maha haddana waxa waaye cadaaladdu jecel yahay cadaalad haddii loogu horseedo kulligooda wada qaadanaya marka fulinimo iyo cadaalad jeceelka Soomaali weli ma lumin haddii hadda maanta nin halkan lagu goobto kuwa u soo danaananayo ku soo booda horrega maxaad ka rabtaan leeyahay u heelanayo soo maha waa dabeecay naga tahay marka ilaahay ha soo hanuuniya Soomaaliya failed state يعني midaan mudanahay maaha fragile state ma muudanin يعني waxaan jecelahay dadkan maanta xukunka ku dhigaya ama raba inuu ku soo noqnoqdo iimaankooda ilaahay inuu sugo waxaa dhawaan loo dabaaldegay 25 guuridii shirkii Carta oo 2000 lagu qabtay magaalada Carta Djibouti waagaas ayaa waxaa la go'aansaday in Soomaali ay wax ku qaybsato 4 iyo bar haddana waxa weeyaan sanad guura loo sameeyay 25 guuridii loo sameeyay waagaas waxa la yiri waxa loo arkay in 4.5 ku uu yahay inuusan xaq ahayn laakiin xal loo arkay marka shirka hadda Djibouti la isugu tagay ma ahayd dadkii meeshaasi joogay inay garowsadaan in Soomaaliya runtii awoodda lagu qaybsado 4 iyo bar waagaas loo arkay inay xal ahayd inay arintaasi dib uga noqdaan oo runtii aanan lagu liibaanin oo aysan horumar horseedin midnimada Soomaaliya aysan qayb ka noqonin taama ahayd shirka hadda la isugu tagay magaalada Djibouti wallahi guud ahaan yaa iskala socdaa aniga laakiin tii waagaas oo ahayd in dowladda lagu dhiso muraadkeeda ma la gaaray horta muraadka laga lahaa war 4.5 ilaa qabiilada diriraayay marka qabiiladii inay xukunkii qayb ku yeeshaan waa la yeeshay Soomaa hadda maxay dhashay waxay ahayd dowlad istaagi karta ummadoo dhan bisili karta inay abuurto ma abuurtay maya xagga dhexe iyo xagga goboladaba kama abuurin goboladana dadaa ku dulman dowladda dhexena dadaa ku dulman marka dulankii hadduu socdo dowladnimo lama gaaraayo marka waa yani mala awaal waaye waxan taas waxay ahayd Soomaaliya ha heshiiso kadibna markay heshiiso ha samaysato qaabka isku maamuli lahaayeen oo ugu horeeyo constitution waa sharciga ummadda waaye oo qeexaya nin walba awoodiisii aan la isku qaban karin haddii dhinac uga wareegato sharcigaa ku qabanaya ma waa sii joogaya oo yaa ku yiri waa joogaysaa adiga ma electionaad ku soo gashay maya waa jiraan hadda gobolaha jira la iska joogo oo weli qoryo diyaar la yihiin soo ma garan ma soconayso hore u socon weysay dalal kale ka socon weysay Soomaaliya kama soconayso marka mawdibaan u noqonaynaa tii waagi oo qabiil ahaan la isku leynayaa haddana war adduunkan kaa yeeleen adduunka maanta intaa kugu bixiyay waa lagu masruufay dib inaa u dhisatid yani diyaar looma aha waxaas waad baaba'aysaa markaa baaba'daana yani waa lagu qabanayaa waa lagaala wareegayaa kan maanta malaynayo inuu boqor ka yahayna boqor ma ahaanayo kan dulanna waa yani ma aqaan meel ay ku dambaynayso waa gartay Cabdiraxmaan runtii dastuurkan gacanta aad ku hayso oo aad tiri waa kumeelgaar goormo kumeelgaarnimada ka baxaya sida ka warqabto dastuurkan in afti loo qaado ayuu sugayaa oo Soomaaliya oo dhan ay u codayso dastuurkan maantana waa arkaysaa wadanka sida uu kala go'an yahay maamul goboleedyadii iyo dowladda dhexe isma haystaan
marka how long ilaa iyo intee bay qaadan karaysaa dastuurkaas in la sugo oo Soomaaliya oo dhan ay cod u qaado ma aqaan aniga in lagu heshiiyey iyo in aan lagu heshiinba insaan lagu hayo maxaa dhacay Soomaaliya afti markay yani afti u qaaday dastuurkii 1960 61 loo qaaday markaan xorriyad noqonay 1961 aftiyaa loo qaaday waa la fooday dadkii registered ahaayeenna horta qofka markuu dhasho muwaadina waa in municipality-ga belediyada laga diiwaangeliyaa markii laga diiwaangeliyo markaasuu xuquuq yeelanayaa oo ah inuu foodo markuu cimri qaarkood gaaro maskaxdiisuna taam tahay soo maha markaas muwaadin la dhihi karaa laakiin qabiil muwaadin ma aha 4.5 muwaadinimo keenayso mana keenin 30 sanaa soo maray mana keenin soo markaati kama ihid laftiga marka ma dhacayso waxaa la rabaa aan kulligeena isku waafaqi karno waa kaas oo meel la mariyo maxaa meel loo marin waaye dan lagama laha soo ma garan maxaa xildhibaan lagu yiri horta waa magac cajiiba xildhibaanka ma aqaan adigna aad dhadhamisay xildhibaan waxa waaye compound word laba eray ayuu ka koobmaa nin xil dhiba waa xilkaa ku dhiba laakiin adiga xilka inaad dhibtid maaha xilka inaad dhibtid maaha waxaad moodaa hadda inaan xilka dhibayno annagaa dhib ku ah xilka maxaa dhahay farsamo ahaan ma naqaan midaan mudannahay maaha soo ma gara waxaa la yidhi qabiilaa lagu siiyey war qabiilka dadkaa mudanoo farsamadii yaqaanaa jira see adiga ku yeelatay maya baarlamaankaa lay keenay baarlamaanka haddii lagu keenay sharci dejiyaa tahay sharci maamule ma ihid soo maha ilaan dowlad weliba oo demokraatig ah haykalkiisii waa saddex sharci dejiye sharci maamule iyo sharci ilaashe soo maha sharci ilaashaha waa maxkamadda sharci dejiyaha waa baarlamaanka sharci maamulahana waa executive-ka saddexdaasu ka koobmaa oo dal waliba ah oo adduunka ku yaal laakiin haddana kulligooda yani oo intaas sharci la sheegaya waa maxay waa in afti loo qaadaa dalkiioo weli markaas aan gaarin gobollada ayaan is aaminay afti ku qaadnay gobollada dadkiaa la soo shirinayay maxaa rabtiin la weydiinaya waxay rabaana lagu yahay laakiin waxay ahayd kadib ninka markuu dhashaba in la diiwaangeliyo waa xuquuqna way yeelanayaa waajibaadna wuu yeelanayaa cimi qaarkood markuu gaaro soo ma garan maxaa jira taxpayer uu noqonaya taxpayer suu ku noqdo waa inuu diiwaan gashan yahay soo ma garan haddii kale yani waa riyo marka in laga baxo 30 sano nagu filan waxaan ugu duceynaynaa inta madaxda ah meel kasta ha joogeen madax sare madax dhexe iyo madax hooseba inay arrintaasi way garanayaane ay geesinimadii ay ku fuli lahaayeen ay yeeshaan waa tahay cabdiraxmaan runtii waxaa jirta dad aan aqoon-yahano ah oo waraysi aan la yeelanay oo arrimaha Soomaaliya runtii aad u taxliiliyey dad baa weli waxay ku adkaysanayaan Soomaaliya inuusan dagaal sokeeye ka dhicin oo ay magacyo kale u bixiyeen adigu ma aaminsan tahay dawladdii dhexe markay burburtay wixii ka dambeeyay inuu dagaal sokeeye ahaa iyagaan ka sugaynaa inay difaan gareeyaan markaasaan kala doodaynaa aniga dagaal sokeeyena waa aqaan maxaa lagu macnayn karaa dagaal sokeeye dagaal laba dalna waa aqaan dagaal sokeeye isagaaba isheegayaba dagaal dhex maray laba sokeeye ah laba muwaadiniin ahoo isku dal ah ka dhex aloosmay waay soo maha dagaalka kalena
waa conventional war laba dal deris ah ama ha kala fogaadeen ama isku dheganaadeen soodin ha ka dhaxayso waa kan aan la galnay xabashidoo kale waa dagaal sooma kara dagaal sokeeyana laba xaafadaa isdirirayso oo la rabay dowladdii markaas meesha joogtay inay yani dhex gasho amnigii sugto gardaradana kala siiso maxaa dhacay heykalkii saddexaad ayaa u furan maxkamad inay tagaan maxkamaddii nin walba jidkiisii sheegto kadibna lagu kala siiyo si u kala leeyihiin fowdadaasaan ku jirayn cabdiraxmaan runtii waxyaabaha ayaga ay ku macneeyeen inuusan dalka soomaaliya dagaal sokeeye ka dhicin waxay leeyihiin dowladdii dhexe ee soomaaliya markay burburtay dagaaladu waxay ka bilowdeen magaalada muqdisho oo keliya gobollada soomaaliya oo dhan soomaalidu waa wada deganeyd wax reera iyo qabaa'illa isdagaalayana ma laha marka magaalada muqdisho keli uma dagaal ka socday dadka magaalada muqdisho ku dagaalamaya gobollada soomaaliyana haybtooda way deganayeen marka muxuu ugu koobnay dagaalkaas sokeeye oo keliya magaalada muqdisho waa sida ay waa aragti qabiiliya muqdisho dalkay misishaa soo maa waa capital citygii dowladdii dhexe degan dowladdii dhexe hadday dhexda ka baxdo ma dowlad jirta hadda iyaga ha sheegeen marka meeshay u wadaan definitionkaas dowladda dhexe markay dunto fowdo waay soo maha fowdadii sooma taaban goormaha gobollada kale soomaalida kale ay yani amni ay heleen gobollada kale laftigooda dagaal soo kama jiro hadda maxaan isu sheegayna cadaaladna kama jirto dadkana registerka maaha sooma garan yani qabiilaan wax ku xukumaa kuma xakumi kartid qabiilada soomaaliya tirada horta yaa tiriyey intay yihiin kuwa is-sheeganaya laftigooda kuwa is-sheeganaya sooma garan horta ma isleeyihiin horta hore ma sugan tahay arrintaas ma sugan tahay ilaan qabiil waxaa la yidhaahdaa ma rabo inaan sheekadaas galo waxay yidhahdaan sab iyo samaale war samaalow oo magacii soomaali xoogaa u eg wata horta hore aabba aad ku kulantaan ma jiraa aan ku iraahday waa wada dhasheen waa su-aalaan nin professor weydiinay 1992gii ayay ahayd aniga iyo la kale soo ma garan war aabbo wada dhalay oo ay tirsanayeen ma jiraan maya kan habar hebel waaye kan xaggaasuu ka yimid geed uu koray kasoo degay xaggaasuu u buubay injin iyo fatuuday kula gelayaan soo ma garan marka ma rabo arrintaas inaan furfuro soomaalida yani waa soomaali qofka soomaalinimada sheegtana waa muwaadin kullina waa isku xuquuq meeshay degan yihiinba soo ma garan xuquuqay leeyihiin xuquuqdaasna waxaa ku sugnaan karta dastuur inay dalku leeyahay waa gartay cabdiraxmaan runtii waa soo gabagabeynaynaa markii dowladdii dhexe ee burburtay oo dagaaladii soke ay waddanka bilowdeen dowladihii ugu horreeyey kumeelgaarka ahaa markii waddanku ay ka dhasheen saraakiishii hore ee xoogga dalka soomaaliya runtii aad bay uga walwaleen oo runtii in baaba ah iyo dhibaatada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamadii siday u kala tageen waxay ku fakereen in dib u dhis lagu sameeyo iyo dib u habeyn ciidankii xoogga dalka soomaaliya adiga iyo saraakiil sarsare oo aad ka mid ahaydeen waxaad isku daydeen inaad badbaadisaan magaalada Washington DC baad isugu tagteen idinkoo aad u fara badan muddo dheer baa fadhideen arrintaasi kaalinta aad ka geysateen miro dhal ma noqotay sibaa miro dhal u noqotay maxaa dhacay waxayna ku timid wasiirkii gaashaandhigga oo markaas professor Gandhi ahaa ayaa jenaraal maxamed cali samatar u yimi Virginia ugu yimi markaasuu weydiistay wuxuu ku yiri war aniga
wasiir gaashaandhigga laga dhigay ABCdii gaashaandhigga iyo difaaca security-gana ma garanayo gacanan kaaga baahana hadda Samatar wuxuu ku yiri waayahay dalkaas waa dalkeeni dhibteedana waa yani waan dhibaysaa marka waxaan kaa codsanayaa keliya in adiga iyo madaxweynahaada iyo prime ministerka hadda jira aad isku aragti ka tihiin haddaad isku aragti ka tihiin yani waa gacan weyn aad siin karaa kadib Professor Gandhi iyo Mawlid Cabdallah u yimaadeen oo UN ka joogay gurigiisa ugu yimaadeen waxay yiraahdeen war amnigii ma fiicna waxaan rabnaa in hadda ciidan lama abuuri karo waxaa la rabaa dadkii farsamada yaqaanay inay isku yimaadaanoo marna aad talo ka bixisaan kadibna hirgelinteedii la bilaabo waana loo wada yeeray annagoo waxaan malaynayaa aad tiro ah oo tiradaasoo yani lagu saleeyey dad waqti nabad iyo waqti dagaalba ciidanka maamuli jiray ka mid baan ahaa waxaan isugu tagnay Washington 2 asbuuc iyo 3 ku dhowaad ayaan hotel ku xirreen ka doodaynay marka waxaa la nimid qorshe dood kadib maxaa dhacay group work badanaan sameynay iyo shir guddoon marka aniga shir guddoonkan ka mid ahaa marka la isku yimaado waa laga doodaya nin walba groupka kale arrimihiisii wuxuu ka qabo sheegaya kadib waxaa ka soo baxay fikir ah ama barnaamij ah la yidhaahdo National Security Stabilization Plan National Security Stabilization Plan waana oo ah qorshe dalku leeyahay oo lagu xasilinayo amniga dalka marka 2 nin oo aniga ka mid ahay ayaa geynay meesha Prime Minister Cabdiweli Gaas uu ahaa markaas Sheekh Shariif madaxweyne ahaa hirgelinteedii ayaa la isku dayay 11 saraakiil sare ayaa ciidamadii markaas oo markaa jireen xoogga dalka ahaa laakiin iska dhalinyaro badan oo weli aqoontii iyo farsamadii la rabay aan aqoon 11 saraakiil sare oo dibadda joogtaan ku xoojinay waa markaas marka kuwii shabaabka laga saarayo Muqdisho loo riixay dhinaca marka kuwa kalena loo riixay dhinaca Jowhar area markaasay nafis heshay magaaladii Muqdisho iyo maxaa la yidhahdaa dowladdii markaa fragileka eeda meesha deganeed saasay ku timi marka haddii lasii wadi lahaa lasii xoojin lahaa oo laga bixi lahaa hadda qaabxumada aan hadda ka hadlayn oo dhan yani waxaan malaynayaa in dalku dib u dhis fiican yeelan lahaa heykalkiisii haddaan amni jirin yani sharci fulaya ma jiraan haddaan amni jirin xuquuq muwaadina heli kara ma jiraan marka amniga waa aasaasi waxoo dhan ma wada ah laakiin waa aasaasi oo la rabo ma garatay in ay dadku xaqay u leeyihiin ay helaan dowladdana culayskaas ay saarto waqtigaas aad buu u badan yahay la soo maray waqtiga aad buu u badan yahay la soo maray cabdiraxmaan sheekh ciise markii idinku qorshihiinnii aad magaalada muqdisho geyseen oo dowladdii aad ku biiriseen howlgalladii la suubiyey oo jowhar iyo marka runtii gadaal loo sikiyey dadkii markaa dagaal oogayaasha ahaa
afartii sano ee uu sheekh shariif joogay maxaa hakiyey oo labadaas magaalo oo jawhar iyo marka keliya maaragtay loo geeyey in gadaal loo celiyo ee dadkii cadowga ahaa oo arrintaasi horumar maxay u yeelan weyse ilaa hadda wala horta arrin complex waaye maxaa jiray waxaa loo baahan yahay horta ciidan ku filan in la helo farsamo yaqaana maxaa dhacay markaad durjiso durjin keliya kuma bixinaysee waa inaad baacsataayo ama ay isdhiibaan ama aad burburisaa soo ma ama ay isdhiibaan ama aad burburisaa haddii aad baacsato oo haddana dulduleelo dambe xaggaas kaaga yimaad oo meelo kale ka soo wareegaan ilaan ma aha dad laba dal ah oo soodin le maaha dadkii waa kula Soomaali xaafadii ay gelayaan xaggaasay haddana wax ka qarxinayaan haddana halkaasay ka qarxinayaan horta hore ma aha dagaal eeliya waayo dagaal laba dal ma aha marka waxay u baahan tahay waa run farsamo lagu dagaalamo waa jiraan ilaan dagaalku keliya ma aha mid conventional mid unconventional waa jiraan oo kuliyadaha lagu barto oo sida dagaal jabhadeed oo kale dagaal jabhadeed hubay ku dagaalamayaan soo maaha hubkii dadkii farsamada yaqaanaa jiraan laftigood kulana yaqaanin dagaal magaalo dagaal unconventional waa dagaal soodinta lagu dagaalamana dagaal conventional waa marka dagaalku labadaas nooc waa yani kan ummadda dhexdeedii ku dagaalamaysa waxaa la rabaa horta ummadda xaggaada inaad soo xigjisto dantoodana ay gartaan wayna garan karaan laakiin waxaa la rabaa adigana waxyaabihii asaasiga inaad sugto soo ma garan cadaaladda inaad sugto dadka inay helaan danahoodii yani maalintii ay doonan karaan caruurtii iskuul inay hesho waxaasoo dhan marka dowlad dadkoo dhan unasteexaynaysa in la helo waayo tabarta ha yaraato yani cimrigeeda tabar weynoo isku filan dowladihii kasii horeeya ma jirin mar kasto dalal ku taakuleeya waa helaysaa laakiin waxaa la rabaa taakuleyntii inay meeshii loogu sugay ay marto waa gartay gabagabada su-aasha ugu dambeysa cabdiraxmaan sheekh ciise runtii nin muddo dheer saxaafadda laga arka ma tihid warbaahintan uma badnid maantay fursaddan aan u helnana runtii aad baan kaaga mahad celinaynaa kelmadda ugu dambeysa oo waraysigeennan aad ku soo xirayso oo tale iyo tusaale ah Soomaali iyo dowlad aad isleedahay maanta fariinta ugu habboon halkan uga gudbi oo waraysigan aan kusoo gabagabeynayna maxaad leedahay Soomaali ha noolaato Soomaali ha midoodo intaasaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan lahu intaas aan kusoo gabagabeynayna waraysigii maanta magaalada Toronto aan kula yeelanay gaar ahaan warbaahinta Somkan Danjire Cabdiraxmaan Sheekh Ciise inta barnaamijkeena barnaamij la mid ah aan ku kulmi doono anigoo Muxudiin Jaamac nabadgelyo